السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada daawadayaal waxaan idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan. waxaan idin rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan. ku soo dhawaada mar kale tabiyo barnaamijkeena fanka iyo falaqaadiisa. waxaan maanta ku soo qaadan doonaa aktarada iyo atirishooyinka dalkaasi Turkiga kuwa ugu mushaharka badan uguna caansan dalkaasi. dabcan atirishada ugu horeysa barnaamijkeena aan ku soo qaadan doono waxay noqon doontaa Handa Erbil, waxayna heshay shacbiyad fara badan ama balaaran markii ay jeshay musalsalkii gabadha Gunesh iyo musalsalkii adiga garaacay albaabkayga. atiradan ayaa bishii soo gashaa mushaar ahaan lacag gaaraysa ilaa $30,000. atirishada lagu magacaabo Bilge Akalay ayaa heshay shacbiyad fara badan kadib markii ay jeshay musalsalkii la magac bahay Jacaylkii Jannada iyo musalsalkii Jacayl Cadaan iyo Madow ama Madow iyo Cadaan. atirishadan ayaa waxay qaadataa mushaar ahaan bishii lacag gaaraysa $30,000. aktarada caanka ah ee lagu magacaabo Demet Özdemir, atirishadan ayaa bishii soo gashaa lacag dhan $35,000 oo mushaar ah. atirishada weyn ee caanka ah ee lagu magacaabo Cansu Deri, aktaradan ayaa hesha bishii lacag gaaraysa $45,000 oo mushaar ah. Serenay Serkaya, aktaradan ayaa hesha bishii lacag dhan $50,000 oo mushaar ah. Berin Saad, atirishadan ayaa waxay heshay caanimo kadib markii ay jeshay musalsalkii Waa Maxay Qaladka Faadumo Guul. aktaradan ayaa hesha bishii lacag dhan $50,000 oo mushaar ah. sidoo kale tan aktaradan Slihan Atagulu, atirishadan ay jecel yihiin daawadayaasha musalsaladeeda, waxay qaadataa qiyaastii lacag gaaraysa $55,000 oo mushaar ah bishii. Fakhriya Evgen waxaa lagu tiriyaa atirishooyinka ugu caansan uguna mushaarka badan dalkaasi Turkiga. Fakhriya waxa ay qaadataa $70,000 oo mushaar ah bishii. haatana waa dhankii iyo ragge waxaan ku soo qaadan doonaa aktarka lagu magacaabo Kıvanç Tatlıtuğ, wuxuuna qaataa $50,000 oo mushaar ah bishii. aktarka lagu magacaabo Kenan İmirzalıoğlu wuxuu qaataa mushaar ahaan $50,000 bishiiba. Engin Altan $30,000 ayuu u qaataa mushaar ahaan bishiiba. aktarka caanka ah ee lagu magacaabo Can Yaman wuxuu qaataa $50,000 bishii. sidoo kale tan aktarka lagu magacaabo Taner Olmez wuxuu qaataa $17,000 bishii mushaar ahaan. aktarka Aras Bulut wuxuu mushaar ahaan u qaataa $50,000 bishii. Murad Yıldamir wuxuu mushaar ahaan u qaataa $50,000 bishiiba. aktarka lagu magacaabo Caglar Ertuğrul wuxuu qaataa $20,000 oo mushaar ah bishii. aktarkan Engin Akyürik wuxuu mushaar ahaan u qaataa $50,000 bishii. aktarka Khalil Ibrahim Ceyhan wuxuu mushaar ahaan u qaataa lacag gaaraysa $30,000 bishii. aktarka Akin Wuzyu wuxuu mushaar ahaan u qaataa lacag gaaraysa $50,000 bishii. aktarka Ibrahim Çelikul wuxuu mushaar ahaan u qaataa $55,000 bishii. aktarka lagu magacaabo Kan Urgangi Uglu wuxuu mushaar ahaan u qaataa lacag dhan $55,000 bishii. aktarka lagu magacaabo Burak Özçivit ayaa ah ama ka mid ah aktarada ugu mushaarka badan dalkaasi Turkiga, waxa uu qaataa $150,000 bishii.